حلي سبحانه وتعالى يدنكو كلفين هدا مسلمين تهين دول كي إدين ديدي حرم كأنا إدين نو ديدان وتر هذا ما مرك يجي يبا وكوي نو ديدي أنا ما أقولين تعكس كذا إلهي وحفرية وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وحلوه باهي إنه يهي إن لغو تعاونه أما الله يسكو كالميستو وحي كصابسان البر بركو وكلمة السمر دمان تيتشيغيسا وحي وناغا إيا والتقوى ولما دو مركي الربان إن لبدان إراي ميشي ودا الصعدان كلا صاران مدنا ومأمورات كي بيليين مدنا ومنهياتك تقوضوا وين تكرنا ورصة بيلي وحي منهياتك في هذا الباب بركنا ووحي مأمور خيره شريعة كفرتي إذن آيات وحي شيء جيسا هدي أدي قريب لغو جيستي ييكو كلفن عرضي أتكقادي إن هذا ني اعتداء سميسو حد قدب كلا إن هذا ضغنا سميسو وحا اسكو قرقار ستان واسكو كالمي ستان وحي كصاب سيسان سمر دمانتيد sidii loola iman lahaa xuma dhammaanteed sidii looga tagi lahaa markaasaa ilaahay sii adkeeya wuxuu leeyahay walaa tacaawanu cala alithmi waalcudwaan ha isku kaalmaysanina baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala alithm wixii dembiya ee muxaramaadkiiya iyo waalcudwaan wixii xadguduba ee umamka kale xuquuqi alkhalq inay ku xadgudubtaan طه اسكو كالميسنين با إلهي إليه سبحانه وتعالى إذن آيات كان إلا بشي بيت الماما يا نميد وحويناد حمها مربل وحميناد نحمك لو قدعين أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك تعاونك أصليا وحصما يا تيسير العمل شقد الله قبنا يا إني فضوضاته هي توفير المصالح دنها هي مصلحة ضدك الحيين سوى ذكر الله سبعين كره هي إظهار الاتحاد والتناصر بين هذا موجنا يدكم موجنا يعني سهيلين هي مدنما هي وذكر تاسين خلق النقطة قفك مؤمنك عموما وحصارا ولكن كلام مؤمنك إنه نصيحيه وكي حديثك صحيح مسلم ككويا لي الصحابي وين نبي قويم عليه الصلاة والسلام يلي وحن بيعة هشيس وحن نبي كل قال على الإسلام إسلام نمو نبي قلنا وحكوا له والنصح لكل مسلم حتقدر سطا قف كستو مسلم أنا ينادو النصيحة يسو وآيات القرآن إلهي إليه وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أما بس نبي عليه الصلاة والسلام سورة اللي فهم كرو يسقوا ينوت المامية أي حديث صحيحة وحينوت المامية إلهي حدودي سكوا كشرة فلينية هي كوا كرعي إن يلمدين دول دون وذا الراعي وقارن حاجة صرف فلان قارن حاجة هو صف فلان وكوي حاجة هو صف وشنا بيها كربة أنت كربة حاسودها سنية أمر كده بايد هذين warkaruu nusii socon kari mayne meelaheennan intaynu loox ka dalooshanno maynu halkan biyaha ka qaadanno oo nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam hadday gacanta ka qabtaanna waa wada liibaanayaan oo waa wada guulaysanayaan hadday ku sii daayaanna waa wada halaagsamayaan kaasi waxaan leenahay waa qaacidada caamka ee dadka muslimiinta ka dhaxaysa qof kastoo muslima waxa saarani وولالكيس كلام مسلم كاه إنه هيليو إنه حوتشيو إنه ندبن وحنفتي سلتش عليه إنه لتش على هذا دقني أخلاق في عنه كل دقمة مركن إنه ما أدنى إنه مشكلة دن الصومال ضايعت كوا عمل سي قبيل كاه قبيلة دوا وعاء وويل وسوشيال لايف كوحكم ده وقبنا هذا مؤرور قبيل لمده وضد نصب وذاك وملك وذا طحن وأرر لكن أرر نمض معناها ما سميسه وح معناه أنت بدن سميه وحلوه أديك سده
ideology-ga uu xambaarsan yahay afkaarta iyo caqaa'idda uu sido ururkaasi soomaalidu ay leeyihiin ee qabiilada ah gudahooda marka la eego marar badan wax qurux badan bay sidaan marka reerka qura loo yimaado reerka quri waxaa laga yaabaa inuu wada tashado nowcun ma dad siman inay yihiin inay leeyihiin takaaful ijtimaaciya iyo tacaawun dhexdooda ah ka guursanaya in kaala la siiyo la kaalmeeyo cidda aafa ku dhacda in wax la taro oo wax la siiyo waa markaynu dhaqankii soomaaliyeed hore dib ugu noqonno ximaayo inuu qofku helo oo la ilaaliyo oo naftiisa iyo maalkiisa loo ilaaliyo hadduu guursanayo in guurka loogu kaalmeeyo bitacbiir aakhir waxaynu odhan karnaa nolosheennan mucaasirkii waxaa u taqaanin insurance-ka reerkaa qaban jiray yacni reerku wuxuu ahaa insurance qofkani uu ka tirsan yahay oo markay timaaddo makhaatirtu insurance-ka waxaad u gashaa markii mashkiladii timaaddo inaad adeegsan karto reerku wuxuu ahaa takaafulkiisa ijtimaaciga iyo tacaawunkiisu nooc min insurance laakiin inta badan mashkiladiisu waxay ahayd marka daa'iradiisaasi laga baxo daa'iradiisa marka laga baxo waxaa bilaabmaya faan dagaal dhac iyo boob baadkiiyo biyaha la iska riixido yacni cidda kale ee reerka kale ahay inta badan agtiisa reerkan xuquuq ma leh haddaad xuquuqdooda dafirtana ammaan baad ka qaadaysaa marka dhallinyarada reeraha marka dhallinyaradu soo kacdo ay guurdoon noqdaan dhaqankii soomaalida waxaa inaad geel bixiso mooyaane dee guursan kari maysid aabbaha haddaanu geel badan lahayn dee tolkaa qayb ka mida waa inaad kaxaysataayoo reerkeedin ku xiga waa inaad geela ka qaadaan ammaanna waad helaysaa waanaad guursanaysaa markaad soo dhacdo gela reerka kale idan markaa xaggaa laga eego daa'iraddan aad ku jirto haddii laga baxo oo daa'iradda jaarkaagaa la tago waxa idinka dhexeeya waxa weeyaan waa dil iyo dhac iyo boob in badan oo ka midi ama in badan oo ka midi waa isdiraac waa yasid iyo maagis haddii aan isku dayo inaan gabayadii soomaaliyeed ee baabkaa ku saabsisnaa tilmaamo waxaa laga yaabaa in barhkiin dareero markaa lagama yaabo inaan istishhaadsado laakiin malaa kuwa idinka fogaa carabtii iyo jaahiliyadii aan qabto xaggaasaa iska ogoshiin inaan gabayadooda soo naqliyo aan eedayga raacaynin waxaa la yidhaahdaa qabaa'ilka ay maagi jireen carabtu dhexdoodu maalan waxaa ka mid ahayd qabiila baahila la yidhaahdo baahila waa qabiilo mudariya oo aan nasab ahaan ka gedisanayn carabta kale laakiin nowcan maa si uun baa loo yasay waa qabiilo marka mabaadi'da laga warramayo rag waaweyn oo saxaabaa lahayd abi umaamat albaahili iyo xataa taariikhdii dambe muslimiinta marka la eego taabiciintii marka la eego geesiyaashii caalamulislaami ugu waaweynaa rag ka mida lahaa qutaybata bnu muslim albaahiliy qutaybata bnu muslim waa bariga muslimku joogaba futuuxaadkooda ninkii furay khuraasaan waaliga ka ahaa ee maxaa la yidhahaa samarqande iyo bukhaare iyo sind iyo dhankaasoo dhan waa ninkii muslimiinta hogaaminayay ciidamadii muslimiinta ee ugu weynaaye la yaqaano oo taariikhi sharq alislaami futuuxaadkeeda waa raggii ugu caansanaaye sooba mara nin taabiciyana ahaa marka la eego adabkii iyo luqadii carbeed dee raawiyat alcarab ama shaytaan ashicr ninkay ku tilmaami jireen asmaci baa baahiliya haddana carabtu say isu yasaysay ama isu maagaysay koodii gabyaagaha wuxuu idhi low qiila lilkalbi yaa baahiliy cawa alkalbu min lu'mi hada annasabi buu yidhi haddii eyga lagu yidhaahdo baahili baa tahay waa ka qaylinayaa yacni baahilinimada lagu sheegay nasabkaa inuu aqbalo eygu waa ka qayliyayaa buu leeyahy waa mid kale waa ku tilmaamayey wamaa tanfacu اlaslu min haashimin ida kaanat الnafsu min baahila buu lahaa haddii asalkaagu uu haashimi yahay maxay taraysaa buu leeyahy hadday nafta kugu jirtaa naf baahiliya tahay
وسير أعلام النبلاء إمام الذهبي بصر نقلنا قبيضة ولا قبيلة باهلة قبيلة منحطة أكتوضة باهل بلا قصص كعجيب كوشيغ وحكم ذا مد عربت كم ذا أعرابية من رمية وحلو يري ما تعيش هاي إن القبيل كباهلي النقطيت واتشنّد كشيت مركا وحولي بشرط أن لا يعلم أهل الجنة أني باهلي بيدي شرط أن لا يعلم أهل الجنة أني باهلي يعني وحن باهلة الصالين ككدقي وحنا ربين أن قوة صومالي آخر يوم markaynu caynkaa u eegno qabiilku intuu gudihiisa joogana waa takaafulka iyo waxtarka iyo caynkan ka ku xiga markuu tagana waa dirirta iyo dagaalka iyo sida iyo xaqiraadda iyo maagista iyo boob iyo dhac nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay dadka mu'miniinta almuslimu lilmuslimi kalbunyaani yashuddu bacduhu bacda المؤمن للمؤمن كالبنيان إن يدك مسلمين تسكوين سيدا ديسكا بدك كاله وحوشيو أما دك مسلمين تدحدود مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم دك مؤمنين تتساله دوحية مركا لا يغو استعيل كودا يسكو حدنان تودا ولا لمدودا مركا لا يغو وحي لم يدين شرقرا شرقو أصلا ma kala laha meel sare iyo meel hooseysa dhibtu markay soo gaadho hadday faryara ku xanuunayso iyo haddii wadnuhu ku xanuunayo alamka isku sibaa loo dareemaa qof kastaa meesha kaaraysu mula taahaa mu'minku buu nebigu ku tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam inuu sidaasoo kale yahay haddaba ayuha alikhwa qaacidada caamka islaamiga hadday taa tahay dhaqanka qabiilkuna uu inta badan noocan yahay مجالك لغا تعاون كرا ما اسبدل كوكا ايمان كرا وحاجه waxaan leenahay kow وين ايديولوجيga مبادئ وين لبدلها haddaynan wacyigelin samaynin oo ideologiga bedelin tacaawunku waa adkaanaya qabiilku waa unit bini aadam ururiyay waxa ideology ama aragtiya ay sidaan bay ku xidhantay haddii aad sidiisa u qaadato ama mabda kale oo aan ideologigiisii wadaan aad keento isaga ka xoog badnaanaya mesela Soomaalidu siyaasiyiintu waxay dhahdaan haddaynu dimuqraadiyadda qaadano caynkan dimuqraadiyad oo one man one vote soo baxo kan soo baxo dadku waxba ma bedelayso waa tijaabo ay Soomaalidu hore u samaysay markii la soo dawaqo mar kale haddana imika lagu celinaya 60kii markay qaadatay xornimada waxay qaadatay dimuqraadiyadda waxa ka dhashay qabiil iyo jilib iyo in loo yeesho xisbi axzaabtu galbeedka markaad joogto axzaabtan dimuqraadiga la sheegaya ideology bay sidataa mafaahiim caqadiya philosophy bay rumaysantay kama warramayo mafaahiimtaasi saxnimadood iyo qaladnimadood iyo waxay yihiin laakiin aragti bay sitaan isagoo aragtidaas sida buu dimuqraasiya oo uu raba aragtidan inuu dadka gaarsiiyo laakiin ninka Soomaaligii axzaab maran buu sitaa axzaabtiisu fikrad ma wadato sumadda reerkoodu ma yeelanaysaa 20 xisbaad furaysaa xisbigii reer hebel iyo kii reer hebel la yiraahdo baa kaaga fudud asta iyo waxa kale lagu darayo la akhrinayo يعني معنا ما صبي ويا ايديولوجي مسيدو اركتي مسيدو وان قبيالدي aad magac kale u bixisay way ninkani waxa qudhay uu dadka ka dhaadhicin kara ama kula noqon kara waa wixii ay rumaysnaayeen inuu dib ugu celiyo oo hadaynu reer hebel nahay waxaynu u baahnay inaynu madaxweynenimada qaadano hadaynu reer hebel nahay waxaynu u baahnay inaynu caynkan baarlamaanka xukunno hadaynu reer hebel nahay caynkan idan waxba ma soo kordhin in dimuqraasi aaliyaadkiisa intaad qaadato meesha geysaa ونفس الطريقة وضدي لحدا كي لقى صباحي سومالي سومو وقدين 68 69 مالها سي دوري سيديتن حسبي بك تشري لما هي سيديتن حسبي كو قالن دورة شذا مركا أي مادين بارلمان كان ما تقانا لما حسبي قرأي نقضين لما ده حسبي مدينين قروها عبد الرزاق قرأ حسبي كليها هذا كي يرجع بقول يلا بطن قالنا سؤال بيقالين ويا سؤال بوح لو عنا كريه
يعني مبادئ ما يسيدنين وحن بو ربي غير كودا إنه كصباح بو حسب كانوا ساقطي هداد ما أنت دبوا على صوت هذا الديمقراطية دي بين السماين إنها هي كم بين السماين إنها هو نفس الشاكلة وحبع عصب اسمه بدلش إذا وحن لنا هذا ربنا مجالات كررها يكتعاون كران أيديولوجي وين إنه بدله نبي محمد عليه الصلاة والسلام قبائل كمو بابين مو ترترين لكن وحي الرميسنايين مو بدلي وحي الرميسنايين أيو بدلي دبتنا وحي اسبدلي نقم كورير كلها وحي الرميسنايين كو انصر أخاك ظالما ومظلوما بين الرميسنايين ولا الكاغر يقر دربه هيلي نبي محمد نبي حكولي ولا الكاغر يقر دربه هيلي ويفهم وين صحابة دي مركا وردة وين إنه استعمال شر محل وقت كذا نبغى شرحه وحولي واحد وجوه هيلي نساء هدو حق تغيير وهيلي هدو قردرك تغيير قعان تقابتها سهيلة كقبا واحد لا ورك شوك دتك إذا وحنا لنا وحنا نوبه هنكواه سي مجالك التعاون كوي ما ضه إنه مبادئ غيرها وجينه أو صحنه مبدأ كواده وحن بدلي كرا قبيلتي ووفوا الحمد عربي كجرتي مبدأ كواده لو صحينا وحوها مبدأ الإسلامي مجالك كواده إنه لنا يا إنه كتعاون كرنا وين إنه دينتي ندي بقول نقولنا ومدة ندب عقائد دودية أفكار دودية وصحنا وحلا بعد إنه بهنا كصومالي وحويان أنت إن الدولة نمر سنين مجالك الإصلاح إنه إصلاحنا الريرة نبت كالإحراد إنه ضد علأه وحما وضيالا كران ضد السياسة اسمها وحما وضيالا كران وحنو بهنا إنه صلح الدب أبوري كرنو وريره النبت أي هلي كران ويهشيس هلي كران أو وحا أي سكو هيان دقيدو دي وهي الكودا يكوضا هدلا هدي إنه دهنا ما يتاك وضع هذا الكلام إنه لو تاكل ما يمحل لو تاكل الدولة نمدا ينوضي لنا دولة نمدا وحين وضع لنا أنت أينه هبين إنه عدة مدحوينا الرئيس الوزراء برلمان كي أنت يالنسا شر أدي الصومالي ده لو قلنا قوة دائما نسويه خير ولا بو حنجوري كقبا أنت وصل رئيسين وبابا لكن ما أنت إلا فرزية يصاب حدا هبلوا ومدحوينا هبلوا الرئيس الوزراء intii weyday waa inay cagaa ku dhigtaa saani dawladdu noqonin ila reer hebel ba xoogaysanaya hadii dawlad noqotay waxa uu arkaya war reer hebelnimo xoogaysanaysa marka waa inuu cagaa qabtaa saanay u soconin idan inaynu dawlad ka warrano waxa ka horeeya inaynu bulshadan islaaxino oo ay heshiiyaan oo bini aadamku saddex wax mid uu ku heshiiyaa markuu isu yimaado saddexda shariicada islaamigana way qiraysaa تبني آدم كو عقل يسكا قرينا وقريسا كو إن ليس عفيه أنت اللي هالشيء الله وضع هضله لقر نقصده ليس عفيه وأنا نقر سومالي ده هرو تقاني وهدي عكرة إن صلح الله سماية صلح هو كومبرومايز إن ليس تنازله أو عدة نوحنا كقعدة عدة نوحنا كقعدة ما يلنا حلا يسوي ما دول له هالشيء يعني محاكمة الله سماية إن اللي هو كلسوني الله صار الله قرنقه وعندي قردران لا يدهوت قردرانتي وقرت الله نقه صدح ده الطريقة بين آدم كو عادي نووية قالنا شرعنا وين فرطي إذا وحنا لنا وحكوا وهذا مجال كتعاون كو قبل أبن كران وحساسيات قبل يسوي تشوك سنكران وين بلشة الحديدة هشيس القرادية هدي سلاح ودعه وهشيس كو يماده حروب تشوك سنيسة تدافع تشوك سنية وحبضا ومركا لا تعاون كرباي منية كلبات أما صدق هذا أنت المامي وحويان مجال كالتنافس إن وجهدي ساما ما يشو جهد الله صحه بني آدم كل الله كان نلشو كمدي بني آدم كل الله ما لكن واحد سويدين تلم حين كل الله مينا ما ينو يستله ما ينو يسيسنا ما ينو يسبابنا ما ينو يسحقره مسه وحين كل الله لنا وحاكا قديسا نبي محمد عليه الصلاة والسلام وعاقي قبليها أما والكي أما يونتكي قبيلك مو بدومنين لكن وحي مبادئ أسماء أبو سمية مبادئ ووين الرميسين وإياك كل الله مان خيرك كله لنسيه جهاد بكل الله مين ميل سري كفكرين وأنا هين غير كان يريا وحكن
reerkii wuxuu ka fakeray inuu dunida mas'uuliyad ka saarantay makhluuqa ilaahay abuuray oo dhan inuu reerkan yari uu mas'uuliyad ka saaranto inuu diinta gaarsiiyo reerihii yaraa ee mas'uuliyadda qaaday ayaa diintan aad arkaysaa caalamka gaarsiiyey iyagoo reerahooda ay dagaalka galeen dagaaladu markay adkaadaan Khalid bin Walid markuu Yamaama u taag waayay war waa isu kay dhex gasheen kala baxa buu ku yiri reer walba dhan dagaalka ka gal reer Bani Xaniifa saasa lagu jabiyay inuu koox walba muhaajiriin iyo ansaar dhan u saaro reeraha kalena uu dhan u saaro tanaafuska wuxuu nabigu ka galiyay alayhi salaatu wasalaam fil khayr hadda meelaha Soomaaliya nabadda ah ama wadankii dhulalka nabadda ah waxaad arkaysaa reeraha qaarkood oo ku baratamaya wadooyin la dhisa iyo masaajid la samaysta iyo caynkan waa nooc min alkhayr waa unity jira oo wax ururin kara oo wax isku darsan kara oo wax samayn kara laakiin meesha loo jeedinaya inay noqoto meel khayra wax wanaaga inuu dadka ka shaqeeyaan idan nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam wuxuu u saxay majaalkay ku tanaafusayeen ama loolanku meesha uu ka imanayay oo ah in reeraha kani wax khayra ay ku tanaafusaan laakiin inaan lagu tanaafusin in la isdhaco ama la isboobo majaalaadka u baahan inay reeruhu wax ka bedelaan oo ka tacaawunaan waxaa ka mid ah majaalka xukumka iyo xeerka ku saabsan culamadii Soomaaliyeed hore nin ka mid ah oo azhari ahaaba afartanadii kontonadii Soomaaliya dib ugu soo noqday deetana wuxuu arkay xeerarkan qabiilka iyo dhibta haysa ilaa 3 kitaab oo qoraa falaya xeer iyo waxa ku saabsan raggaa soo gaadhay in culimada waaweyn ee Soomaaliyeed ka mid ah soo gaadhay ninkaasi xeerkii reerkoodaba uu ka baxay maxaa sheekh dhacayo intaan isugu yeedhay buu yiri reer hebel odayadoodiiba waxa dhawaa reer hebel maanta waxaan idinku yeedhay anigu maanta laga bilaabo xeerkii reerka waan ka baxay dadka la dilay dhiigooda idan la qaybsan maayo waxana wadaan oo dhan waa baatil xeerkiina waan ka baxay xeerarka reeruhu in dib loogu noqdaa bay u baahan yihiin oo ay ku noqdaan waayeelka iyo aqoon-yahankooda iyo dadkooda aqoonta leh oo la saxo xeerarkaasi dulmi badan baa ku jira dad wax ma garata baa dajiyay wax ma garata markaan leeyahay aqliga ma ilaayn sharciga ilaahay saadaradeed xeerarka reeraha dhexdooda in isbedel lagu sameeyo oo loo guuro in dadku sharci u qaato inuu dadku sharci qaato waxay fudaydinaysaa taasi inay xasaasiyadku yaraadaan waxay fudaydinaysaa inuu yaraado faariga kan iyo maxaa la yidhaahdaa gardarradan dadka lagu leynayo waxay fudaydinaysaa maalan tusaale ku siinaya nin baa wax dilaya dabeetana reerkoodii isagoo gardarro wax ku dilay ximaaya bay siinay xagga dambaa la iska marinaya waxaa la leeyahay reer hebelow dee mag baanu idiin ogollahay dii kale waxaa samayn kartaan sameeya magtu reerku waa ku qasbayin inay dagaalamaan iyo inay mag qaataan magtay qaadanayaan magta markay qaataan dhib kale isna reerka gudihiisa ka jiro magta lama siiyo dadkii agoonta yareereed aabahood la dilay reerka tiina qaybsanaya isaga wax yar baa la siinaya inan yar baa soo koraya oo aabihii la dilay oo adduun laga siin oo aan loo dilin oo waxba xuquuq lahayn ninkani isagu markuu soo qaan gaadhay hubka qaadan karo waxay kaga go'antaysna inuu mid kaw kaga siiyo ilaa isbaabihii la dilay magana lagama siin at least compensation diyadani waa compensation hadduu qofku compensation aabihii markii la dilay uu heli lahaa waxa laga yaabay lahaa inuu sabri kari lahaa inuu xun kiina reerka qaybsaday idan haddii la rabo xasaasiyadan aan hadhaynin ama qofkan wax dilay qof kale la isaga dilayo asbaabo badan qofkii oo la waayo dabada la galiyay ama iyaga agtooda ay odhanayaan may nin inugu weyn buu hayo kani uma dhigme oday hebel baynu ka dilaynaa oo kii wax dilay inta la dhaafo ku kale la dilayo waxaasoo dhan waa xeerar u baahan in la bedelo yaa bedelaya waxa bedelaya aqoon-yahanka iyo culimada iyo salaatiinta iyo ummaddu haddii la bedelo xeerarkaasi waxay fudaydinaysaa in nabaddu soo noqoto waxay fudaydinaysaa in dadku uu nabad ku wada noolaan karo
soomaalida haddaadan joogta qabaa'ilka qaar baa isku dayay inay beddeleen oo wax ka qabtay kuwii wax ka qabtay nabad bay ku nool yihiin waxay yaraaday dilkoodii waxay yaraaday dhibtoodii in iyo kii ay dadka u geysanayeenba uu yaraado isla reeraha halkaa wada dega jilibba ka mida iyagu diiday waxay dhahay waa nin reer hebel intaanu soo qabanno hala dilo odhan mayno weli dilkii sidii buu ugu socdaa intay aakhiro u direen baa weli tiro badan sababtuna waxa weeyaanuun waa xeer xumada tan haddii xeerkan la bedelo wax kale wuu joogsanaya idan waxaan leenahay majaalka laga tacaawuni karo ee aan u arko inuu wax bedeli karaa waa in xeerkan la bedelo si uu isu bedelo waxa kale meelaha laga tacaawuni karo ee xeerkan hoos imanaya waxaa ka mid ah dadku haddii xeerarkan dulmigu ku jiro la bedelo uu cadaalad dareemo noloshu way fududaanaysa nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu isku dayey cadaaladda dadka inuu ka simo gabadhii qurayshiyadda ahayd ee tuugada loo qabsaday qurayshi way qaadan kari weyday waxaa la yidhi aan nebiga kala hadalno calayhi salaatu wasalaam inaan gacangoyntan lagu fulinin aan kala hadalno oo yaa nebi moxamed aan u dirnaan la hadli karaya baa la yidhi waxaa la yidhi ninuu aabbihii jeceliyay oo isaga jeceliyay baa jire ninka aan ku dayno cid kale loo diri kari maaye ma aha tolkii nebiga iyo qabiilkiisii waa usaamata bnu zayd baa loo diray oo la leeyahay kala hadal nabigu calayhi salaatu wasalaam nebigu wuu ka cadhoodo maxaad ilaahay xuduuddiisa ka mid aad ka shafeeco qaadaysaa buu ku yidhi dabeetana nebigu wuxuu u sheegay dadkii idinku horreeyey waxay ku halaagsameen hadduu wadiico amada ka liitaa hadduu qaanuunka buriyana waa lagu oogayey shariifku hadduu galana ninka magac iyo maamuuskiyo caynkanina waa laga cafinayay idan dadku hadduu cadaaladda u sinmo waxaan tolla-ayayda qofka ku kalifaya waa maxay wuxuu la-aya meeluu cadaalad ka helo hadduu qofkani dowladnimadan iyo waxaan la sheegaya hadduu cadaalad ku og yahay muu tolla ayay yidhaahdeene booliisku u tegi lahaa u odhan lahaa qofkanba wax iga dilay laakiin markuu isleeyahy ka booliiska haystaaba mid reer hebelah oo kalsoonidu ay ka maqan tahay marka uu rumaysay inaan xeerku u sinnayn isaga iyo inta kale waa inuu cid difaaci karta uu u yeedhaa inta aanay cadaaladi jirinna qabiil waxba kama qaban karaysid ama qabyaalad waxba kama tari karaysid waayo qofku naftiisa iyo maalkiisa iyo xoolihiisaba waa inuu iyo cirdigiisa iyo sharaftidiisa waa inuu nabad ku helaa intaa markuu nabad ku heli karaa marka uu rumaysay in cadaalad ma lihin dunuubtaa maranayso qof wax dilaa la waaya ama qof wax xadaa la waaya ama qof wax dhibaa la waaya ma lihin laakiin haddaad og tahay inaanu cadaaladda ka baxsanaynin waa wax fudud marka laakiin markaad ogtahay in xuquuqdaada lagu xadgudbo iyo waxaaga qofkii inaanad cadaaladda qabadsiin karaynin idan majaalaadka reeruhu ay ka tacaamuli karaan waxaa ka mid ah inay u hoggaansamaan in cadaaladda dadka laga simo oo reerku hadduu waxgeystana in cadaaladda lagu oogo haddii cid kale ay waxgeysatana in cadaaladda lagu oogo taasi hadday dhacdo waxaa soo noqonaya kalsoonida iyo is-aaminka iyo in dadku isku kalsoonaado waxaan leenahay waxaynu u baahannahay hadda dadka kalsoonida ka wada dhinsan oo waxaad is leedahay haddii mid reerkiinnii meesha qabsadana waxaad is leedahay xuquuqdaada waayi maysid saasaa kaa dhaadhacsan haddii laakiin reerkii aysa hayseen uu meesha qabsado waxaad is leedahay adiga dee shadaaftaa lagu laabaya waxba kuuma hadhsana marka waa inaad dumisaa dowladnimada marka aynu haysanno ama dadku uu ku yeedhayo nidaamkeenna qabaliga aynu u noolayn iyo addawla alxadiida isma gelayaan sababta aanay isu gelaynin koowaadna waxa weeyaan addawla alxadiida waxay rabtaa inay iyadu hubka haysato oo shacabku aanu hub haysanin waxay rabtaa inay iyadu dariibo qaaddo cashuur qaaddo oo dadkao dhan ay ka soo qaaddo waxay rabtaa inay iyadu dadka matasho oo tamhiilka diblomaasiga iyadu yeelato adiguna ka qabiil ahaan haddii dowladda nin reer hebele qabtay
waxaad leedahay dhowr waxba waan waaye kow askarta hadduu isagu yeesho dee wuu gumaysanayaa marka waa inaanu dowladdiisu kicin hadduu dhaqaale helo oo iga dhaqaalo bato wuu gumaysanayaa waa inaanu dhaqaale helin intaasoo dhan xataa haddaa u sinnaataan waxaad leedahay dee reeru way sufaanayeen reer hebel weligiiba madaxweynaha ma qabanine madaxweyne qabashadu waa tashriif buu u arkayaa dee reeruuna bays waxa uu ahaa attafaakhur in laysu faano marka faankii baa laydinka helaya marka waa inaad ogolaanin si aanu faanka kaaga helin waa inaad ogolaanin inuu meesha tago idan dawla alxadiida qaabkan ay u dhisan tahay iyo muctaqadaadka qabaliga aynu rumaysannahay isma waafaqayaan iyadoo aan iswaafaqayn baynana waxaynu qaadanay caqli odhanaya 4.5 iyo 5 iyo reeraba in wax loogu qaybiyo way adagtay inay labadaas iswaafaqaan waa waxaan suurtagal ahayn idan waxa suurtagalkii waxa weeyaan baan leenahay dadkan kalsoonidooda in dib loo dhiso in mabaadi' laga dhaadhiciyo ay wada halgamaan waxay u tanaafusayaan inuu tanaafus khayra noqdo oo khayrka lagu baratamo dadkan inuu cadaalad wada helo oo cadaaladdu ay ka sinaadaan qadaayaadkaasi haddii la helo waxa fududaanaya inay bulshadani bulsho wada nool oo wada dhaqanto oo wax wada yeelata ay noqoto majaalaadka in la xaqiijiyaana waqtina way u baahan tahay meesha xanuunku ku jiro in la abbaarana way u baahan tahay dadku inta badan waxay u calaacalsan yihiin xagga madaxtinimada iyo xagga baarlamaanka iyo xagga dowladnimada dhismi mayso tii horena way duntay kuwii ka horreeyeyna way is haysteen maalin walbana in baa ciil qabaysa haddaanan bedelin dadkani siduu u fakerayo iyo aragtida ay rumaysan yihiin iyo waxa lagu dhaqmayo haddaan la bedelin walidaalika ayuha alikhwa teenna tuka adag buu nebi maxamed bedelay calayhi salaatu wasalaam teenna qabyaalad ka adag oo ka dhib badan oo haddii aan ka sheekayno gabayadoodii waxay rumaysnaayeen siday u fakerayeen qaabkay wax u arkayeen waxaad sodhanaysaa uun qolo soomaaliya ahayd qolada meeshan deganayd laakiin dowlad dunidoo dhan ka talisa nimankaa lagu bedelay waa isla iyagii cumar bin alkhataab oo cumar bin alkhataabkii jaahiliyadana noolaa abu sufyaan waa abu sufyaankii jaahiliyadana noolaa maaha dad cusub xataa dadka badh baa jiilka yar ka fakeraya nebi maxamed carruur malcaamad kuma darin intuu malcaamadu furtay isma odhan yararkani ha kuu soo koraan kuwani kolley waxba iska bedeli maayaane marka kuwan yaryari soo koraan kuwan waaweyn buu la dhaqmay odayaal waayeel salaadiin cuqaal aqoon wixii waddanka joogay ee dad ahaa kuwaas baa la iswijgareeyey bini aadamka markaa waa asiiru muctaqadaati waa sida uu wax u arkayo hadda waa la barbaariyey oo waxa lagu barbaariyey reernimo reerku inuu magac leeyahay maamuus inaa leedihiin reerkiinu inuu weligiiba reeraha kale u talin jiray inaa idinku haddii inteenna halkaa fadhida nin walba la yidhaahdo bal reerkiina ka sheekeeya wixii laguu sheegay waxay u badan tahay ninna inaan loo sheegin beri reerkoodu jabay nin waliba wuxuu hayaa intii goobooda reerkooda guulaystay gabayadii ay tiriyeen xoolihii ay reeraha kale ka qaadeen laakiin intii iyaga xoola laga qaaday ama la jebiyey ama sheekada kuma jirto laguma soo sheegin marka nin waliba wuxuu haystaa reerkooda inuu boqorrada waddanka ahaan jiray nin walo soomaaliyeed saasuu rumaysay qabka iyo hankaa unbaana isla jiidhay xaqada jirtaa markaa waxa weeyaan waxaynu u baahanay cuquusha bini aadamku siday u fakeraysa inaynu bedelo ma aha inaynu idhaahno qabiilka ha la dumiyo reer ha ku abtirsanin waxaan hala wax kasta oo aad beddeshaa waxba ma beddelaan bini aadamka waxa wax ka beddela waa siduu u fakerayo dimuqraasigan aa arkaysaan iyo reer galbeedku saatan dimuqraadiyadda waxa ka horreeyey casru tanwiir waxay yidhaahdaan enlightenment waxay u bixiyeen qarnigii 17aad 18aad enlightenmentku wuxuu beddelay yurub sidii looga fakerayay ama sax haata ama qalad haata waxay ku beddeleen kama warramayo laakiin waxaan tilmaamaynaa dimuqraasi ma kicin ilaa iyo yurub siday u fakeraysay iyo cuquusheeda la beddelay markii la beddelay kadib ayaa hanaankani uu noqday hanaan jiri karo sugmi karo socon kara hanaankan qaadanaya iyadoo aan dadka waxba laga beddelay suurtagal maaha dimuqraasaan soomaali anfacaynin
مبدأ كلو الدولة ذات بار أنفعين وحا أنفعيا وحويان سيدي وفكريان يا عقليات دي ربيسيين يا الدنيا السيدي واركيان وحسك بدلو هنكو دي وحسك بدلو نبي محمد نوح السبي عليه الصلاة والسلام واكا وحكر لقي هنكو دي ربعي بن عامر نين أن ديرين أو إيطاليا وفرس يرو قابا وطا وانت أصوب بلود دقال كسو جري أيوها دولة وين با وفتي الله ودري رستم با يلي هلا يوير بل سعد بن وقاص عيدي صادر وتجي ربعي بن عامر جاهليه دي سيسو فكري هذا مسكح دي شوي كقدي سنتي بقر بان الله كل مياه بقر كو خو يدي maxay idin soo saaray aan xoolo idin siiyay haday gaajo iyo waxan tahay meeshiina idin ku dharginaya xoolo qaato iska taga wuxuu ugu jawaabay ilaahay baan soo saaray si aan uga saarno الله أخرجنا به إلهي بانا صو صار يسأل ضدك وصار رمحي أدونك عديدي جيسوان وآخر بلع عيده وقارسينه وضيق الدنيا بانو كسارنا سعة الآخرة بانو جينا الجور الأديان بانو كسار يعني وحكف فكرية ما ها من قبيل كي رايا وكرنا شيء يو الرمه يسك فكرية وانك فكرية الدنيا دنيا يسبد القصبية خيروها هدي فكرة الربيسين أدونك وحكا قبطاننا وما muuqanayo reerka yare miskiinka ay jaarka yihiin baadkiya biyaha ay wada cunaan ee waxbay wada raadcaynayaan hadduu hanka la soo gaabiyo Soomaalida hanku uu sii gaabtay marba bay qoomiyadii wax ka fakarayeen imka hankaasi hoos buu sii socdaa halka uu marayaan waxa weeyaan tuulada ku xigto inay ama federaal ka qaadato ama ka tagto ama ay ka fogaato tan ku xigta weeyaan ma aha tii shishe laga soo yimi dadkan haddaanad hankooda kor u qaadin waxay ka fakarayaan haddaanu isbedelin majaalaadka ka tacaawunayaan isma bedelaya markaa haddaan caqliyadu isbedelin halkan wuxuu wiilkii dhalinyarada bilaabay ka akhrinayay in allaha laa yugayiru maa biqawmin xataa yugayiru maa bianfusihim qurayshi sidii bay quraysh u ahayd ansaari sidii bay ansaar u ahaayeen qabaa'ilka carbeed sidii bay qabaa'il u ahaayeen iyagoo qabaa'ilkiiya ayay dunidoo dhan bedeleen laakiin waxay ku bedeleen iyagoo wata enlightenment sharciya iyagoo mabaadi' sida yaan reernimadoodii sidin iyagoo mabaadi' sida mabaadi'daas waxay soo saartay Utaybah ibn Muslim al-Bahili ka dhigtay halyeyga ugu weyn muslimiin uu noqdo ee bariba ka dagaal gala isagoo qabiilkiisa baahilay yahay oo qabiilka gabayada ka tirinayna uu yahay inuu noqdo isbedelka waxa abuuraya marka aniga dariska waa laga yaabaa inaanan diyaar garow badan sameeyno si talteel aan u tilmaamay laakiin warkaygu wuxuu ku kooban yahay isaga waxaynu raadinayno dawladnimadu ma samaysmayso reerka dib u liqaya waxa qura isbedelku ka samaysmi karaya waa uquusha iyo qulubta bini aadamka hadaynu kuwa bedelay siday u fakarayaan reer qodhami sidii isu fakarayay iyo isbedelka dawladnimada waa samayn karna marka sallallahu alayhi nabi muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin